halkan waa waxsan sida media fadlan haddii ay tahay marka ay kugu horeysay ee booqashada halkan subscribe dheh, share dheh, like dheh, comment-na ka bixi. waxaad kusoo dhawaataan taariikh kooban oo aan kaga hadli doono dalka Yemen. wax ka baro taariikhda dalka Yemen. dalka Yemen waxaa la yiraahdaa Jamhuuriyadda Yemen, wuxuuna ku yaalaa galbeedka qaaradda Aasiya, wuxuuna ka mid yahay wadamada la isku yiraahdo dunida Carabta. dalkan oo juqraafi ahaan dhaca dhanka koonfureed ee jasiiradda Carabta wuxuu xuduud la leeyahay Sacuudiga, Badda Cas, Gacanka Cadan, Badda Carbeed iyo Oman. waxaa la aqoonsan yahay dalka labaad ee dalka jasiiradda Carbeed ugu weyn. calanka dalka Yemen wuxuu ka kooban yahay midab casaan, cadaan, madow siman. tirada dalka Yemen u dhashay waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 27 milyan oo qof. caasimada dalkaasi waa Sanca, waana magaalada ugu weyn. caasimada labaad waxaa la yiraahdaa Cadan, waxaana dalka ku yaala qiyaastii 200 oo jasiiradood. marka Yemen la joogo gaadiidku waxay isku dhaafaan dhanka midig. lacagta dalkaasina waxaa la yiraahdaa Yemeni Riyal. luqadda rasmiga ee dalka Yemen waa af Carabi. diinta dowladda aqoonsan tahana waa Islaam. dalkan oo taariikhnadu sheegaan in waagii hore loo aqoon jiray al-Yemanaad wuxuu xiriir ganacsi la lahaa dalal ku yaala geeska Afrika. wadankan wuxuu caalamka ku leeyahay taariikh fac weyn. tusaale ahaan mar waxaa ka talin jiray boqoradii Balqiisa oo maamuli jirtay boqortooydii Saba. boqoradan ay waxay nooleed xilligii Nabi Suleymaan calayhi salaam. waxay ahayd boqorad awood badan oo xilliga ka talinaysay dhul ballaaran oo ka mid ah dalka Yemen. boqoradan ay waxaa lagu sheegay taariikh nololeedkeeda Quraanka Kariimka iyo sooyaalka cajiiba oo dhexmaray boqorkii awoodda badnaa nabigana ahaa Suleymaan calayhi salaam. Allah raali ka noqdee. dalkan ayaa sidoo kale waxaa xilli kala gadisan soo maamulayay imaaradihii kala gadisanaa, isla markaana iyada oo ay ugu dambeysay boqortooyadii Islaamiga ahayd ee Cusmaaniyiinta. dhanka diimaha markaan eegno, wadankan dadka ugu badan waa muslimiin sunniyiin ah oo lagu qiyaaso boqolkiiba 56 inay ka yihiin bulshada guud ee dalka Yemen. shiicada gaar ahaan qaybta Yaziidiyiinta boqolkiiba 42 ayay iyaguna ka yihiin. shiicada qaybta Ismaaciiliyiinta iyadana waa 2.5 boqolkiiba. intaas soo hartana waxaa la sheegay inay diimo kala duwan haystaan oo ay ka mid yihiin Nasaarada, Yuhuudda. marka laga hadlayo dhaqanka dalka Yemeniyiinta, gaar ahaan dharka raggu waxay xirtaan macawiis ama hoos xir qaybta sare ee jirkana waxay qaataan shaati, cimaamad madaxa lagu duubay. sidoo kale dalka dhaqan ahaan in raggu ay ku hubeysnaadaan toorey, taa oo muujinaysa in qofku mar walba dagaal diyaar u yahay. dhanka dumarka haddii aan eegno, waxay xirtaan dharka caadiga ah ee asturan oo ay qaataan gabdhaha ku nool guud ahaan dunida Islaamka. Yemen waxaa la sheegaa inay ka mid tahay wadamada sida weyn ay uga jirto qabyaalada, waxaana dalka ka jira kooxo abaabulan habbeeleed oo haysta hub fara badan. waxaana had iyo jeer dalka ka dhaca dagaalo u dhexeeya maleeshiyo isu duriraysa qaabbeeleed. dadka wadankan waxay aad caan ugu yihiin maandooriyaha qaadka, waxaana qiyaas dhawaan la sameeyay lagu sheegay in 90 boqolkiiba ragga u dhashay wadanka ay yihiin muqayiliin. qiyaastan ayaa sidoo kale lagu sheegay in 4 dumarba ee ka mid ah ay qayisho. wadankan aan ku hadlayno ee Yemen wuxuu ahaan jiray laba wadan ay kala haysan jireen labadii boqortooyo ee Cusmaaniyiinta iyo Ingiriiska horantii qarnigii 20aad. markii uu dhamaaday dagaalkii koowaad ee dunida, waxaa la aasaasay dalkii la oran jiray waqooyiga Yemen sanadkii 1907. waxaa la sameeyay dalkii kale ee koonfurta Yemen. labada Yemen ayaa la mideeyay 22 bishii May sanadkii 1990. waxaana madaxweyne ka noqday Ali Abdallah Salah oo ku geeriyooday weerar ka dhacay magaalada caasimadda ee Sanaa. Ali Abdallah Salah ayaa ka hor intuusan xilka ka tagin sanadkii 2012 wuxuu dalkaasi maamulayay in ka badan 20 sano, balse banaanbaxyo xoogan oo lagu diidayo xukunkiisa ayaa soo dedejisay inuu isaga tago xukunka uu hayo isagoo dalka aan ka bixin markii uu xilka ka degay. wixii xilligaasi ka dambeeyay, dalku wuxuu galay xaalad dagaal oo kooxda shiicada ee Xuutiyiinta ay inta badan qabsatay
dalka. Cali Cabdalla Saalax qudhiisu wuxuu shiicada siiyey awoodda ugu badan ay ku qabsadeen dhulka aan tirada yareen oo ay maanta gacanta ku hayaan, balse ciidamada Xuutiyiintu waxay ku guuleysteen inay kala furfuraan ciidamadii awoodda badnaa ee Saalax dhowr sano ka hor kula biiray kooxda Xuutiyiinta. kooxdan ayaa waxaa suurtageliyay inay qabsadaan 45% dhulka guud ee dalka Yemen, wadankana ay ka ceeriyaan madaxweynaha caalamku aqoonsan yahay ee Cabdirabbi Mansuur Al-Hadi oo sanadihii ugu dambeeyay dibadjoog ka ahaa. bishii Sebtembar sanadkii 2014 kooxda Xuutiyiinta ayaa qabsaday caasimadda dalka Sanaa, waxayna ku dhawaaqeen inay iyagu dalka maamulaan. taasna waxay keentay in dowladaha khaliijku faragelin ciidan ku sameeyaan dalkaasi, taasoo keentay in xanibaad la saaray ay saameysay 17 milyan oo qof oo Yemeniyiin ah. dagaalada biriga iyo duqeymaha xirka oo ay soo kala baaritaarayeen Sacuudiga iyo Iiraan waxay dalka Yemen ka dhalisay xaalad bini'aadanimo tii ugu liidatay, iyadoo dhawaan warbixin ay qaramada midoobay soo saartay lagu sheegay in dalka ay ka jirto macluushii ugu xumeed dhawaanahan soo marta caalamka, iyadoo dhanka kale la sheegay in 25 milyan oo qof ay ka kooban yihiin dadka reer Yemen, 20 milyan oo kamid ay u baahan gargaar degdeg ah. dagaalka ka socda Yemen ayaa waxaa loo badinayaa in waji cusub uu sameeyo dilkii ay Xuutiyiintu u geysteen madaxweynihii hore ee wadankaasi Cali Cabdalla Saalax, iyadoo la sheegayo xulafada uu hogaamiyay Sacuudiga ay sii xoogeysanayaan dagaalka ay ka wadaan dalka Yemen. halkaad taariikhdaasi kala socotaan waa waxsan sida media. fadlan haddii ay tahay marka ay kugu horeysay ee booqashada halkaan, subscribe inoo saar, share like comment ka bixi. dabcan waxaan mar walba idin soo gudbin taariikhda wadamada islaamka oo kooban. wad ku maasantihiin la socoshada iyo daawashada sheekadan.